Soomaali ahaan kulligeen inaan fahamno u baahan nimankan shisheeyaha ama carab ahaada ama cajam ahaada Soomaali markay joogo ma jecel iyo walaalnimo kula joogaan mise danay leeyihiin aniga waxaan leeyahay danay leeyihiin waa dan leeyihiin waxay dan ka leeyihiin siyaasadda dambe ee mustaqbalkan ay rabaan dan ay ku gaaraan marka adiga waxa laga rabaa Soomaali ama as'adliid ama hogaamiye hadaad tahay marka horeyso dantaada garo ma kaas kaliya sameeyo isagu wuxuu raadinaa mar walba dantiisa ku gaar ay ku fududoobi lahayd inuu ka dhaadhiyo oo ku sharciyo wuxuu yani si degdeg ah waliba marka annaka loo baahan yahay inaan dib u fiirino marka shisheeye waa ku imaanaa waa ku wada waa ku dhaha walaalo intuu ay saaxiibo mashcaaro macaan oo taal cumriga wuxuu rabo ku sheegaa laakiin waxa weyn dan uu leeyahay ogow dantaadii dantiisa haday iswaafaqaan ahlan wa sahlan haday iswaafaqaan walaalo aan tanaan rabaa haddii aan iga raali aho tan waa ila qaban kartaa ila qabo iga raali aho haddii kale marka waxa weeyaan annakaan laga rabaa haddii adiga hadda annaka aan tashan weyno haddaan isu keeni weyno tee waa lagu soo dhexgalaa laga faa'iidaysa hadda annaka dhan waxaa leeyahay beesha caalamka magaciisa mayna soo dhexgasho ma wasiyaad ku jirtaa ma isticmaar maya fariiso tasho haddaad tasho weys baa lagu talinaa arrintu waa mid marka annaka aayadda iska leh waxay gacanta nagu jiraan 2016 say noola dagaalami jireen ma u malayn karta idinkaad banaanka ka joogto intay nooga neefsan jireen haddii aan muqaarana ka sameeyo 2016 international community-ga doorkii ay lahaayeen iyo maanta waxaa weeye waa ilka beeleen ilka male laakiin markaas qoortay noogu neefsan jireen waxaan sameeyey waxaa la yidhi haddaan la yeelin waan la bixinaa waxaa la dhahay geelan askartan ii sheegeen maxaa la dhahay amisom aan la bixinaa mش عارف mش hadda dadkan waa ilka beeleen hadday waxaa idin safiirka af Soomaaliya waxaa la yiraahdaa danjire aniga safiirka inta ii joogo walaalnimada iguma imaan ignaxun iguma imaan wuxuu u yimid dantiisa inuu dalkan ka leeyahay inuu fushado 2016 ma jirin sida dan saaw culus ay xoog saarayeen laakiin hadda xoog waxay saarayaan dantooda dowladda federaalka ay ka rabaan waa caddahay shuruucda ay daba joogaan uma abaarna masalan annaga hadda waxaan u baahanahay shuruucda hadda la keenayo baarlamaanka ama la rabo in xoog la saaro lasoo saaro loo baahnaa waa kuwa u abaaran dhisidda hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo dhisidda hay-adaha heer dowlad goboleed waxaanu ka hadlaynaa magaciisi shuruuc kale oo interest gaar ah oo ku jiraan marka saa darteed anigu waxaan qabaa danahoodii ayaa aada u soo ifbaxay international community hadda ma aha intay meesha tagto dowladda federaalka ay kusoo hogaamiso ama dowlad oo magaciisi goboleed ay hogaamiso xafiiskooda waxaa la yidhaahdaa ii sheeg kelmadii ay isticmaali jireen good officeskooda ma isticmaalo haya dabqaad ay ku jiraan saasaa la lahaa saanay lahaayeen laakiin saasa la yeeli doona waa inaad yeeshaan ma jirto hala heshiyo kalaamka falan faaruqa ilka male marka ha ka sugina international community ayaa isku keeni doonta dadkan kale boos annaga isugu imaan karna haddaan garan weynana waa khasaaradii ugu weyn